فير واحدة مكان كسوق هذا المرة بوبسي سيدا بس عطاء وعمرت علينا أوتيل برمة وماشي أنا قامين سيميناركا وأنا سدحان شغلي يقرأ دوان قامناي دليلي قامين سيميناركا ونوتو زرع رمى حزب الواقوان ومن جدانا وحقق كذا نحن نقول بوليس الصوماليين والله خلق شرعي للمديرين الإلاليات يا واحد الله استعماله يا عبور يا عبد الجمهوري يدك اللي هو هندلو وحاول وعي ترياش بوليسكا وهي الشيء ما أصل يا بوليس وهي الشيء أمر كالوحي لما كنت كنويسو في محتوينا الفرماج السود هي وأيام ترى أنت ذلك طلع بسنة أيام مني عيدا وعبوري كرمني حسبي وذجر وحاول كلية كأكثر أركتني فكر ذلك وكم معمول له سو بدكتا وسيمينار waxaan bixinaynay xisbiga waraajista gariisaya hay waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashooyinka inay arrintan ka hadlaan xisbi rajistaraysan oo diiwaanka shaqo loo tiiftiyeesho waxaan kaloo ka codsanaynaa meesha caalamka ee booliska meesha isku gadaan jeedaan saxaafadda u jeedaan xaalaha ay lacag siiso iyagan inay wax ka qabtaan oo tilaabka qaadaan rajaynaynaa oo u jeedaan wax qarsoon maaha ديارة كلها أركيدنا هي فكرة ديمقراطية يتبدل كان معها من التنازل هذه أنا أقولها وصلت حكومتها معلمين تي بحين يسي درسية بس أنا كلمتي سويت بخسارة صعب أوكي بسم الله الرحمن الرحيم بقى علمي دكتور حسن الشيخ علمو oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaan ahaa macallin ka bixinayay seminaarka halkan lagu qabanayay wacyigelinta iyo baraarujinta dhalinyaradu inay bartaan dowladnimada iyo qarannimada iyo maamul wanaagga waxaan si darro ah ardadii aan wax barayn oo aan soo jiilka cusub soo kobcinayn oo aan rabnay dalkan mustaqbalka inuu noqdo indho in loo diiday inay wax bartaan maanta waxay ahayd maalintii aan soo gebagabayn lahayn seminaarka waxaan dadka baraynay wax kala bari lahayn waxay tahay what's the state muxuu yahay how it's functioning suu u shaqeeyaa stateka muwaadinku muxuu leeyahay xuquuq maxaa saaran waajib dadkaani si aan u abuurno civic society dad mujtamaca oo ilbaxa oo fikirka iyo caqliga iyo horumarka ka shaqeeya si peacefully ah laakiin waxaa nasiib daraa inay suurtageli weysay laakiin waxaan idiin sheegaynaa janjigu waa imaaha isbeddelaana imaanaya dadkaana lama caburin karo waqtigii caburintana wuxuu dhacay sida qorraxaasi u dhacay Soomaaliyana waa guulaysanaysaa Soomaaliya ha guulaysato Soomaaliya ha midowdo noolada dhamaantii maanta in darsiga saddexda bari aan soo wadnay in maanta halkaan lagu joojiyey macallinkii aad arkayseen duruustii waa duuban yihiin oo ardada loo dhigay waa dowladnimada waa dimuqraadiyadda waa sarreynta sharciga waa wax walba oo dalkan maxaa la yidhaahdaa la rabay inuu ku hagaago annaga waxaa xisbigeena afkaaraan u taaganahay waxaan rajaynaynaa inay afkaartaas socoto lama caburin karaan lama cadaadin karaan insha allahu tacaala